السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabtayda qaaliga ah channelkiini waa Fawzia Secret Recipes. maanta waxaa idin wadaa bariis cadow cagaaro maal dhahaa adi magaca rabta u baxso saliida inta kusoo kululeystay kadibna basal 3 xabo waaweyn ah soo jartay sidaa rabta u jajara adiga basasha inta haysatid ka dhigo inaa badsatidna way fiican tahay kadibna toon iyo sinjibiil isku soo tumay kusoo darsaday kal iyo mooy kusoo tumay ma fahanti waxaa rabta ku tumaadi hadaa shiidanis shiido basasha iyo toontii iyo sinjibiishii iyo saliidii cabaar isku soo shiilayaa ilaa ay kasoo gaduudanayaan oo maaragtay kastoo yar cabaar u sabar kadibna karoota soo xogay kusoo shubay 2 xabo karoota qiyaas fiican kadibna waxaan kusoo shubay zucchini iyo bahasha digir dheedheerey cagaarey haddii maaragtay zucchini aadan haysan wixii haysato kale oo qudaar ku bedelan kartaa dooqaada ka ciyaar muhiimadda waxa waa bariis qudaar xoogaa ku jirto inuu ahaada qurxan kadibna waxaan kusoo daray xawaaji guriga ku sameeyay oo xawaaji bubuur iyo filfil si fiican isugu shiilaya bariiskan waxaan ku dardaray aad u yar yahay waa bariis kale iska arag oo fudud waxaan kaloo bariiskan u sameeyay digaag insha Allah videoga part 2 aan kugu soo qori doonaa hadii Ilaahay idmo chicken si qatar u soo shiilay inuu videoga in ku dheeraadaan diidaa marka 2 qayb ka dhigay kadibna waxaan ku soo daray maraq digaag dadka badan maraq digaaga ma jeclo hadii aad jeclayn adii cusbo ku darso ani maraq digaaga ku soo daray kadibna si fiican isugu shiilayaa waa u jeediin si fiican u shiilantay bariiska waxaan sameeyay waxaan ku soo dhaqay shabaqaasaan ku soo dhaqay biyaha ka soo baxay waxay iga caawinay maahan inuu si fiican igu shiilmo kadibna si fiican isugu shiilaya ilaa 4 daqiiqo bariiskii iyo qudaartii dhadhanaankii maaragtay si fiican isku soo fahmaan markay si fiican isku fahmaan calashan bariiska wuu qaboobay maahan oo kala soo dhaqay marka bariiska marka shiishid wuxuu ka caawinaa inuu hore ka karsamo marka biyaha ku soo dartid marka si fiican bariiska u soo shiilooya kadibna biyaha ayagoo karkaraya oo maaragtay saaid u karkarayaan ku daraya biyaha bariiskina waa shiilmay biyana karkaraya marka hore ka karsamaya laakiin haduu bariisku biyo lahaay adoon shiilin ku shubto xoogay biyaha isku qaboobayaan wax badan marka saacida marka bariiska cabaar shiishid hadhow hal uu istaagaa bariiskaas marka waa kana si fiican bariiskeena u soo shiilaynaa waqti fiican siiyay biyo karkaraya oo ii diyaarsanayaan ku soo shubay biyaha marka bariis ku karsanaysa adiga waxay ku xiran tahay bariiskaada nooc uu yahay haduu yahay bariis biyo badan qaadanayaan oo qiyaaso haduu biyo yar qaadanayaan oo qiyaaso laakiin markasta waxaan jeclaa bariiska inay biyaha ku yaraadaan si hadhow huuris ugu karo dabka dhexdhexaad u geeyay huuris oo si fiican ugu soo karay markaan bariiska dhamay bariis qajaclo noqday laakiin biyo dhan ma ku shubaayo waa loo reey magaaleena dabka loo gaabinaya si fiican isku dhex galiyo qudaartii kadibna 20 daqiiqo aan ku dhahay dabka u gaaban daboolka u dheereynaha waa laga aamusaa muxuu ku soo baxaa bariiskan bariis xabadba meeshiisa istaagaya kaale iska arag si fiican u bislaaday macaanka quruxda la yaabayo digaaga aan ku kariyana part 2 ayaad igula arki doontaa waxaan ku leeyahay gabar iyo wiil oo hadaa cusub tahay welcome kusoo dhaw channelkeena hadii hore u joogtan waxaan ku leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay fadlan ha iloobin inaad wali hadaad subscribe saarin aad ku dhufato qaybta subscribe-ka ay ku qodan tahay calaamada gaduudka hadii maaragtay uu ku cajabi videogana like ta u qurween walaasha maahano aniga marka arka qof cusub oo ku qoslaya marka ina iga qosashisid lacag la'aan maxaa ka fiican hadee waxaa idin leeyahay waa ku mahadsantahay hadaa channelka daawatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi